waxaa aad ii cajabisay gabadh la ii sheegay qisadeeda waa qiso dhacday gabadh baa waxaa loo sheegay ninkaagu haweeney qarsoon buu qabaa haween baa u qarsoon way ogaatay wayna xaqiijisay inuu haweeney qarsoodi ku qabo markay ogaatay shib ay u tiri maba ayna la soo qaadin maba ayna dareensiininba hadhow waxaa lagu yidhi naa waa lagula guursaday maxaa meesha ku dhiga haddaad arrinta ogaatay maad kacdidood masayrtido ugu yaraan maad waxoogaa ka daadsatid ya waxoogaa masayrtira xataa maad ka daadsatid gabadh caqli badan bay ahayd waxay tihi naa hadda haddaan boodboodo oo qaylqayliyo oo ninkii aan kuleetiga ku dhago oo berri la yidhaahdo waa jirtaa waanan qabaa waana xaaskaygii oo bannaanka ay u soo baxdo soo ma imaanayso uun laba mid inaan ninkii isweyno ooy naag dib ka timi ninkayga iga qaadato iyo in habeenada layla qaybsado soo labadaa mid imaan maayaan sidaas daraaddeed waxay tidhi habeenadayda o dhan anigu aan haysto isaguna meelaha hadhu dhuuntay tidhi maalinkii maxay yeeli hadduu meelaha dhuumaalaysan nin dhuumaalaysanhay ya gabadh aad u caqli badan bay ahayd cajab badan sidaas daraaddeed dabagalkan faraha badan iska daayo oo waxyaalaha nolosha khadhaadhayay ka mid tahay tuhmadii waswaaskii aan ka hadlaynay bay ka mid tahay wixii bannaanka u soo baxa wixii hawshiisu leeyahay laakiin wixii aan bannaanka imaanin dabagalka iyo tatabbuca iyo faraha isaga qaada wallahu a'lam